waxaa la dawladii suurkii iyo sarajooggiiba way ka cabatay laga daayay marka ay maanta labadaaba waynu ka deynana waxa sida la wada socotaan gudoomiyaha xisbiga wadani hadlay kowdii bisha August maalintii Khamiistii waxa uu ka hadlay saddex arrimood oo aasaasi ah oo aad iyo aad muhiim ugu ah wadankeena oo ay tahay arinta doorashooyinka ay tahay iyo heshiiskii laga gaaray oo uu bogaadiyay arinta labaadna ay tahay arinta gobolka Sanaag ka taagan iyo habkii anagu xisbi ahaan aanu arkaynay in arintaasi xal looga gaari karo iyo arinta ugu dambeysay oo ahayd maamulkeena iyo hab maamulkeena inuu nidaam dictatori oo kale talisnimo ah oo ku sii socdo marka la eego waxa dhacay iyo dadka la xidhay iyo waxyaabahaas oo dhan arimaha uu gudoomiyuhu ka hadlay arinta ugu mucdo weyn waxa ahayd arinta gobolka Sanaag waxa uu gudoomiyuhu ka hadlay in wadanka ay hore jabhada u soo mareen jabhadahaasi wadanka soo mareen habkii loo xaliyay ee loo maray ay ahayd odaytinimo waayeelnimo dulqaad iyo mas'uuliyad madaxweyne ay ahayd maanta laakiin si xikmadda iyo odaytinimada iyo mas'uuliyadaasi aanay madaxtooyadeennii maxaan ku raahdaa aanay oolin sababta aanay oolin waxa weeyaan waxa maanta madaxtooyadii Soomaaliland fadhiya madaxweyne dulqaadka doqonnimo u yaqaan wax kasta oo aad la akhrido iyo meel kasta oo aad la eegto dulqaadku muhiimad u leeyahay ee waliba hogaaminta u leeyahay hadda dhaqanka Soomaaliga eegto qofka reer xukuumaya ee suldaan laga dhiganaya ayaa la eegi jiray inuu qof dulqaad leeyahay oo caruurta loo diri jiray loo oran jiray gogasha ka xumeeya si loo darso oo loo fahmo qofkan inuu berito qof dulqaadan karayo yahay hadda dimuqraadiyadda iyo waxaynu sheeganayna aynu ku dhaqmayna adeegto dulqaadku waa rukniga koowaad ee dimuqraadiyadda meel aanu dulqaad oolin dimuqraadiyaddu ma taalo labadaasba ka kaale diinta islaamka ee aynu ku dhaqmayno quraanka kariimka ah 103 jeer buu ka hadlaa dulqaad mar layna farayo mar wanaagiisa leeno sheegayo siyaabaha kala duwan ee doonaha ku yimaadeen laakiin 103 jeer buu ka hadlaa quraankuna doqonnimo dulqaadka uma yaqaan sidoo kale magacyada ilaahay sifaadka ilaahay ee ilaahay isagu go'aansaday isagoo boqorkii dunidana inuu isu bixiyo ayaa waxa ku jirta dulqaad badan waxa ku jirta sabir badan inagana miskiin yaro dadkeena yar waa boqorkii ilaahay baa inuu dulqaad badan yahay isku amaanay miskiin inta yare Soomaaliland xukuma oo daalaadhiciisa la arko maanta iyo sida maxaan ku raahdaa ay uga dulduulayso ayaa yidhi dulqaadku waxa weeyaan waa doqonnimo waa taata maanta aynu madaxa isugu wada jirnay aynu meel ugu socon laanahay taawey arinta caare haddana anagu ku celinayna hal aan wada hadal iyo wanaag iyo dulqaad ahayn male hal kale arintaas ay leedahay waxa ka soo horjeeda waa qurun iyo dheeri in looga sii dhaadhaco tan anagu soo jeedinayna ee gudoomiyuhu ka hadlay ee aanu ku celinayna waxa weeye arinta caare xalkeedu waa in wada hadal iyo xikmad iyo dulqaad iyo sabir madaxweyne lagu maxaan ku dhahdaa xalliyo madaxweynaha waxaan soo jeedin lahaa 103 meelood ee quraanka lagaga xusay dulqaadka inuu eego baaro akhriyo fahmo si uu u garto dulqaadku inaanu doqonnimo ahayn oo ragnimo yahay marka xisbigu marka hadaba issue iyo arrin ka hadlo dhaqan baa abuurmay wasiiradeena qaarkood ay doonayaan inaanay issue-ga iyo arrinta laga hadlay ka hadala ay dadka meel kale ula kacaan xanuun iyaga hayay iyo meel xoqanayaan ay ula kacaan oo ay maxaan ku raahdaa ay ula tagaan wasiirka warfaafintu sida la socotaan hore wuxuu u yiri xisbiga wadani waa Soomaali weyn waxa aanu garanahaynin hadalka uu oranayaa macnaha uu leeyahay iyo saameynta uu yeelanayo iyo waxa uu maxaan ku raahdaa marka uu mujtamac xisbi qaran oo 240 ay u codaysay hadalkiisa uu hadalkan leeyahay hadalkaas uu baxaya adduunku uu akhriya luqada kale lagu turjumaya
positionkii Somaliland ee wada hadallada uu daciifinay laakiin isagu garashada inaanu lahayn ayaa run ahaantii maxaan ku dhahday hadalkiisa ka muuqata waxaynu ognahay ninka sidaa u hadlaya wasaaraddiisa sida u dayacan tahay taana anagu ka hadlaynaa waxa weeyaan waa wasaaraddiisa sidoo hagaajin lahaa wuxuu maamulaa wasaarad ka dhaqaale badan 3 wasaaradood oo la isku daray oo waliba wasaaradihii muhiimka ahaa oo la isku daray haddana sida la socotaan radio Hargeysa halay hadda tagtay ma dhageysan kartid TV-gii qaranka qaybtiisii guduhu waa la wada socotaan oo ma shaqeyso marka idaacadii TV uu maamuli kari waayay in issues-ka waaweyn ee qaranka markay madaxda xisbiyadu ay ka hadlaan maxaan ku dhahday mirqaan hadlo run ahaantii waxaan isleeyahay inay dhaawac weyn u geysanayso sumcaddii iyo maxaan ku dhahdaa wada jirkii iyo maxaan ku dhahdaa ummadnimadii Somaliland annagu taanu ka hadlanayno ku celcelinayna waa issues-kaas haddii arrinta caaro tahay position-kaas aanu annagu ka leenahay war wada hadal iyo xal iyo wanaag iyo xikmad iyo odaynimada lagu xaliyo haddii wax ka duwan hayo dahabbareero ha sheego habbareero ha yiraahdo dagaal baan ku xalinayna halkay marka la xusho ee ay la tagtaa ha arko laakiin waxba yaanu ku meeraysanin in ciidamada maxaan ku dhahday uu wax ka sheego markii wasiiradu sidaa u hadlaan annagu ma jawaabno sababta aanan ugu jawaabaynina waxa weeyaan waxaan u aragnaa hadallada noocaas inay yihiin hadallo ka hooseeya meeqaamkii dadka siyaasiyiinta ah ee mujtamacana eeganaya ay ku wada hadli laayeen hadallo ka hooseeya oo aad iyo aad uga hooseeya inay yihiin ayaan run ahaantii u aragnaa waxaan u aragnaa inay tahay aragti gaabnaan iyo qofkii oo aan hilaadin lahayn fahamkiisa siyaasiga ah inuu hooseeyo marka inaanu intaanu soo fadhiisana anaguna la murano run ahaantii waan ka gaabsanaa waxa weeyaan shacbiga ayaa judgment maxaan ku dhahdaa sameynaya oo xukumaya laakiin tiisa tashalay waxa weeyaan ninkii meedku ka dhacay ee yiri hadduu sii go'ay oo waxa weeyaan tii horeba maxaan ku dhahdaa tu ka daran ayuu wasiirku run ahaantii ku hadlay shalayto shacbiga reer Soomaaliland oo dhan baana ka maqraatay oo maxaan ku dhahdaa siday uga xumaadeen arrintaasi ay u diideen ay uga soo horjeesteen ay ahayd wax wada aragteen oo alla wada socoteen oo maxaan ku dhahdaa baraha bulshada iyo meel walba lagu faaleynay xalay xataa wasiirro dawladda ka tirsan waayo dadka qaar baa damiirkoodu nooli wasiirro dawladdu ka tirsanaya aniga ila soo hadlay si ay ugu sheegaan arrintaasi inay ka xun yihiin maxaan ku dhahdaa wasiirka xukuumadda afkeeda sheegay inuu ku hadlaayo maxaan ku dhahdaa uu ku talaabsaday ku hadlo laakiin tiisa waa inuu ogaado haddii ciidanka qaranka uu sumad reer u sameeyo haddii ciidanka qaranka loo sameeyo sumada xisbi haddii ciidanka qaranka loo sameeyo haddii ciidanka qaranka naxli iyo kala qaybin iyo kala tag dhexdooda lagu abuuro sida hadalka wasiirka ka muuqata askarta ciidamada ku jirta inta cirro isku haybta yihiin in cirro u shaqeeyaan buu u yaqaan laakiin sidaas ma aha waa ciidan qaranka mushahar ka qaata qarankooda u dhinta qarankooda u dagaalama laakiin inay dhagahooda waxa afayeenkii xukuumadda Soomaaliland ay ka maqlaan iyagoo duruuftay ku nool yihiin aan ognahay iyagoo wax $100 ka yar qaata noloshii qoysaskoodu maxaan ku dhahdaa halka ay taagan tahay la og yahay in haddana maalin walba la reereeyo oo qurunka dadkii xukuumadda maxaan ku dhahdaa madaxda ka ah wasiirada ka ah ay ciidamada waxa u qooraan waxaan u aragnaa inay tahay ayaan daro iyo arrin lafjab ku ah maxaan ku dhahdaa qaranka iyo ummadda iyo wada jirka iyo wax kasta oo wanaag ku astaysan oo la sheego qofka mas'uulka ah markuu hadlayo waa inuu fahmaa oo uu gartaa hadalku macnaha uu leeyahay haddii uu garan waayo oo uu ku wado inuu ciidamada sidaas u reereeyo oo uu xisbi reereeyo oo hadallo aan miisaan lahayn had iyo jeer xisbi ku sheego wax xaqiiqo ah isaguna inaan wasiir qaran noqonayn askariga halka dhaxanta jooga ayaa askari qaran isaga uga dhow waxaan doonayaa inaan wasiirka u sheego shaqadiisu hadii uu yahay afayeenkii xukuumadda waa inuu xukuumadda dhaliilaha iyo ceebaha ay leedahay uu ka difaaco shalay wuxuu ku baryootay inaan maxaan ku dhahdaa mushkil ceebahooda la sheegin laakiin maanta xukuumaddu way qaawan tahay
annaguna diyaar uma nihiin inaan asturnay waa sii qaawanayna ceebahooda waa sheegayna mar baanu sheegaynaa labaanu sheegaynaa saddex baanu sheegaynaa iyaga laga rabaa inay asturaan iyaga laga rabaa inay ceebahaasi sidii u xalin lahaayeen keenaan iyaga laga rabaa inay keenaan siyaasadii ay ku xalin lahaayeen mashkiladda bariga ka jirta ee afar jirsatay iyaga ayaa laga rabaa inay dhaqaalaha dawo u keenaan annaga shaqadeedu waxa weeye ceeb kasto ay sameeyaan iyo si kasto ay u qaldamaan inaanu shacabka u soo bandhigno taasna saacad kama habsaamayno haddii ay jecel yihiin iyo haddii ay neceb yihiinba waxaan doonayaa inaan ku soo gabagabeeyo warqad baan u qori doonaa golaha wakiilada haddii la yiraahdo insha Allah aan ugu sheegayno inay u yeedhaan wasiirkaasi oo ay weydiiyaan sharaxaad sababta uu ciidanka qaranka u reeraynayo sababta uu maxaan ku rahdaa askarta la yaqaanay ee weligood yaalahood ciidanka ahaa ee qarankan u dagaalamayay uu ugu sheegayo inay maxaan ku rahdaa xisbi yihiin cadeynteedii inuu baarlamaanka hor keeno baarlamaanku weydiiyo baarlamaanku waajibkoodii ka guto warqad arinta ka hadlaysa ayaanu hadii la yiraahdo insha Allah u qori doonaa oo baarlamaanka u gudbin doonaa adiga aad mahadsantiin حسب المعارض هو ثاني وراء أو شهر وراء موقف عن عام وعدي هذا المعارض. خرجوا وضرب كذا مسألة دار كان يدركهم بالمساهمة في أرضنا. مركز الذي مدري إن عن باريسان أرد عام. محاك لا حلا إنسان. anagu xalkii waa naga sheegnay gudoomiyaha ayaantii dhaweyto uu sheegay acyaantii Soomaaliland odayaashii iyo madax dhaqameedkii iyo mas'uuliyiintii waxa ay joogan ceeriga bay joogan arinta inay xal u helaan bay joogan anagu powerkii ma joogno ma empower gareyn karno waxa looga baahan yahay madaxweynaha inuu dadkaasi empower gareeyo inuu fahmo dulqaadku inuu raginimo yahay inuu dulqaad iyo xilkasnimo iyo xikmad madaxweynenimo u la yimaado arintaasina waxa liyo xalkeeduna ka weeyaa xal kale ay leedahay ma jiro Mr. Secretary, is Solidarity Party prepared to be part of the intermediary effort to end the crisis in Sinai region instead of just giving opinions and thoughts about how to solve the issue? I think, do you want it in English? Yeah. I think our position has been clear. We are not the ruling party, we are the opposition party. Our position is to contribute the process. We have contributed the process. We told that what we need is the presidential responsibility. What we need is the president to act responsibly. What we need is to understand that the tolerance is what to run countries. So if the president is sitting today thinks that tolerance is foolishness, it's the otherwise. That's what we are suggesting. That's the way forward. That's how problems are resolved. And in this country, there have been a number of times where military clashes happened, and it has been resolved. So what we are asking is, the methodology is already there. The way of resolving those problems is already there. Somaliland has a well-documented experience of resolving all those problems. So what we want to him is to take advantage of that already existing experience and do it the right thing for the country. haddii baarlamaanka luqadda lagu gudbisana ka dalbanaysan inuu soo koobo cadeeyaha maas haddii baarlamaanku arrinta waxba ka qaban waayo talaabada qaadaysan ka xisbi ahaan annagu de talaabo aan wali dhicil ma doonayna ka sii hadlo baarlamaankan warqad u qorana markuu baarlamaanku warqadan nooga soo jawaabo ayaanu de ilan content ka ku qoran imika ma sii ogiyay ayaanu hadii la raax ka oran arrintii aan ka wali wadaagay odayaana watay haddii loo baahdo in xisbiga mucaaradka wadani la yiraahdo xubno ku soo dara guddigan arrinta diyaar qorshe kasta oo qaran oo arrinta xal loogu raadinayo diyaar baan u nahay